مدن الجحا وزير دولي عبد الله فارح وهليه هول ودانada wasaaradda iyo shaqaalaheeda golaha wasiirada federaalka wixii ka jooga golaha wasiirada ee dowlad goboleedyada salaadiinta ama boqorada Soomaaliyeed culimadiinka gobolka Banaadir wixii mas'uuliyiin ka jooga khubarada ama xeeldheerayaasha bidixdooda ka muuqda hadda si tiro yaraada markii hore sabadnaay gabdhaha Soomaaliyeed iyo dhammaan protokolada ku fadhiyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kadib waxaan u maleynayaa war meeshan ku haray ma jiro abwaaniintii iyo akhyaarintii iyo mas'uuliyiintii hadashay ayaa sheegtay oo ugu horeeyay wasiirka arrimaha gudaha oo ajandaha sheegay iyo waxa laga hadlay waxaan ku kordhi karaa badan ma jiraan laakiin waxaan isleeyahay dib u heshiisiinta hanaankeedu dhab waa dhab baan isleeyahay shaqadan sababtu maxay tahay waxaad moodaa ummadan waa ummad islaama fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuuna laga leexleexday in hanaanka dib u heshiisiinta cali maxamed geedi lagu yeeraa naftirkeeda dhab ah waxaa dhab ah in maanta aan arko ugaas Umar Xiiray iyo salaadiin iyo abwaano madax dhaqameedyo kala duwan oo aqaan oo 3,000 iyagoo hogaaminaya shirki Muqdisho yimid si gaara ugaas Umar Xiiray anigoo Washington joogo iga soo raacay inuu Soomaalida dib u heshiisiinteeda ka qayb qaato dibna uma naqanaan filaya Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa biyo dhulliga arag lagana dhow waa la yaabanahay ogaada in maanta si rasmi ah shir dowladu hogaaminayso aan soo istaago mikrofoonka la siiyo iyo kooda ogaada Soomaha biyo dhulliga arag lagana dhow dowladda kursiga keenta Villa Soomaaliya oo la soo dabaalato dhibkaad ogtiin u soo martay madaxdeedii inaan la xusi jirin inaad maanta ogaataan waa ku faraxsanahay hadda intaan sheekaysayna mas'uuliyiinta waxa la yiri buuggii ka soo baxay shirkii dib u heshiisiintii 2007 ee uu hogaaminayay madaxweynaha hore Cali Mahdi Maxamed koobigiisii baan arkay lama akhriyo waxa ku taalay in dib u heshiisiinta la sii wado ilaa tuulo la geeyo Soomaaliya meeshana waa laga soo jeediyaan filayaa waxaan isleeyahay marka is-ixtiraamid iyo in la xasuusto war waxaan yaa soo qaba jiray guddiga dib u heshiisiinta qarankan arkayo gudoomiyihiisa halka la keenay iyo xubnihiisa jooga iyo muxuu ahay bulshada rayidka ah oo weligeed u halgamaysa ummadan in la isu keeno oo ka kala timid dalka oo dhan waxaan arkaa khubaro soo diyaarisay barnaamijkan dowlad dadka la tashanaysa oo dadku inuu leeyahay oo isbedel ku timid oo shacbigu leeyahay oo cid kasta oo isku dayda shacabku ka ceshanaya soo salaamaha ayaa meesha timid waxay keentay in aan maanta la yaabanahay shalay markii invitationka la ii soo diray ee wasiir Juxa la hadlay oo wasiir dowladiisa iyo Professor Yaxya ay la soo hadleen waxaan isleeyahay maxaa laga rabaa xasilinta magaalada la sheegay ma ciidankaaga hubka laga dhigi rabaa haddaan invitation ka akhriso waxa ku taala madaxda ra'iisul wasaaraha ku soo dhawow inaad ka qayb qaadato kana mid noqoto mas'uuliyiinta ka hadlaysa furitaanka hanaanka dib u heshiisiinta qaranka Soomaaliya aad ayaan uga mahad celinayaa waa mas'uuliyiin garatay inay dibadda xilka ka tagi doonaan una baahan yihiin in la ixtiraamo halka dardarkooda laga heli karo ama laga heli jiray kuwa dhagoodayaal aan ogeyn cilmigaas aad aan uga mahad celinayaa halkeer war ku maharin laakiin waxaan rabaa ma dhaafi karo wale mudanayaaliya marweyn dib u heshiisiinta eray waa hadal laakiin ficil la iska rabaa say ku heshiinayaan dad guryahoodii dad kale la Soomaalihu ka haystaan dad beerahoodii dad kale la Soomaalihu ka haystaan beerihi say ku heshiinayaan been ma la isu sheega ما إلهي وفعل لك
ما قارن كأقبل يسلاف ما دولة ما سلاس هل يسعفيه بالرمضان لو جرى إلى هيد بلا فهم ويدسنه حاجة إسلام بلا استبدحنه وننقول ننكيس هايستا إيه صلاة كده دكنا كورهم أو ويدسن عفس أو عيلك كده خيالي بيسكوا سنة الله أكبر كورهم عليك دار إسلام لا نتابع تو عنده دي بيجي موسى يستعنيا ما نحلاليس عفنا ما لا نتوقع ما لها شوي ما يشرح وين لقى في يتبوه الشيسين سودان كهالك كهالوي كهالوي بيلها لقى ترى بديه لقى تنتهي أن الداوين سومالي وهي لدرجة الدولة رجيم بين تو بيجي يسوي ما كتب الدلع رجيم إلا بدلها عادي ويا دونك رجيم كم كله بدله ولا هو قالوا تو ولا كذا عند هذا نهايدهم سوما ما تصل لسيف عد يصل شوف عد يصل يسكتهم وحصل لقيه شيء تقول له سجد يروح جفنه هل يسعفي سومالي وحبك ما جرى وهو كان آخرنا وحن رجعنا يا مركا إن دب نقطه الله اللي يقول بوانا لا كانوا هالقوي شوي أنا سوي دينه مع علماء الدين استشاجرت من دام الدين استياجرة من مدح دعمت دا استش ما جاب دا استلي ما أغني هنا استلي لما سياسة دان سياسة دا لها دبكة كعسل المركزين كفؤ كعسلين ملح يشوف شيء يسولای كوا في حدا كوا إلهي أوصري إيه كوا توبة كانوا رسالة جارتين نقولنا هذا دبكة لمية سوما عفش كهال كاسو جلاهين لسويدي أيان سوي جديا waxaan Soomaaliya idinka codsanaya waa lagu daalay dibin daabiyo gabayada meeshan ka yeeray alanka loo jaasuusa meel kale iyo ajnabi iyo baqti xaran waxa loo jaasuusay adaaba muwaadin la ka dhigay suugaanta nagu filneed inta culimada diinku akhriyaan halka ka sheegan baa nagu filan ajandaha oo wasiirku soo jeediyay khubaro fara badan oo nooc walba leh cilmiga bulshada midka diiniga iyo midka maadiga ayaa goobta joogta waxaan codsanayaa inaan maanta shirka la furayaa telefishinada laga arko madaxdu hayda aragtay inaan ahayn ay dhab idinka tahay inaad maalmaha loogu talagalay subax walba timaadana waqtiga loogu talagalay xirtaan halkaas ayay ka imaanaysaa oo ka imaanaya hanaanka dib u heshiisinta ma aha shir dib u heshiisinta waa hanaan qaabka loo heshiin karo maxay ahayn sababuhu waa sheegay wasiirku waa dulmari in laga jawaabo lama rabo ma dhaqana lagu diray ma diin baa lagu diray ma dhaqaala lagu diray ma siyaasad baa lagu diray ma daaq iyo biya lagu diray su'aalahaas waxay ka imaan doonaa jawaabtoodu dooda halka ka dhici doonta waa huba inay soo jeedi doonaan khubaradu duruus fara badan iyo cilmi laga soo shaqeeyay oo wax lagu tusaaleeyo dadka ee la raaco inta kadib waxaan rabaa inaan hal shay ku daro dadku concerns waxay muujiyaan cabashooyinka jira in dawladdu wax ka qabataa laga rabaa wasiirka meeshan u dambeeyay raallihada waxaa meesha fadhiyay wasiirro ila soo shaqeeyo fara badan gacmo dheeraan arkay saakay cali ismaaciil cabdigiiran arkayay cabdulqaadir caraar naftirkiisa xildhibaanadeennii dawladda maanta jirta waxa ku jira rag aan soo wada shaqeyno marka inaanan dooq xumeyn oona doorasho xumeyn caddaynaysaa wagigii 10 sano ka hor iftiin baa u baxaya Soomaaliya waxaa la rabaa in la wada qabto dul kor loo qaado magaalada Muqdisho xuquuqdii dadka deegaanka iyo caasimadda ummadda joogta oo lahayd baa la doorsiiyay siyaasadaha Soomaa waxa loo doorsiiyay مثلات سياسة مال 3 مليون عدة تري ما دوي كانت ما سعودي كانت أنا علوك أنت قبانو 3 مليون الصومالي ما يكونوا شو عاصمته حقوق سياسة مال أودت كده كان كل يوم يمد عاصمة لقد جاي ومثلات سياسة مال أودت كجري كم تهدي وشيسين تلقوا ترى وحكلهم فوائنا ما أنت فرت كفيه عاصمة بين صوماليات انت دوجان كيرو اهل لوغو يمد اي عاصمه الله فدغه افت Soomaaliya ku noqotay iyo inta maal gashatay badan wa caasimada marka hala dhowro qofka oraya xuquuq male caasimada iyo dadka jooga wuxuu muujinayaa inuu ka fog yahay waaqica iyo Soomaalinimada
shaqa xumo dhacda waaye dib u heshiisiinta lagu darayaa dadka deegaanka ee maalin walba miyiga ka hadlay waxaan ugu baaqayaa ma meel mari karaan kaligood maqaam caasimadeed iyo xuquuq gaar waa arrin dastuuriya waa arrin looga fadhiya qaranka Soomaaliyeed madaxdiisa ugu horeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaarihiisa iyo xukuumaddiisa iyo gobolka banaadir maamulkiisu inay soo bilaan ee golayaasha qaranka inta la geeyo baarlamaanka ugu dambeeya lagu ansixiyo Soomaa maalin mar halka xaflada ka jirtay ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in dawladda madaxweyne Farmaajo iyo asaguba ay diyaar u yihiin xukuumadoodu in maqaamka caasimadan la sameeyo xuquuqda dadkana meel la saaro laakiin loo mari maayo qaabele maamul gobol baa loo maraa shacab u yiri goobjoog baan ahay gudoomiyaha gobolka ku soo ururiyay yiri wasaaradda arrimaha gudaha gaaraysa federaalka iyo dib u heshiisiinta golaha wasiirada tagaysa baarlamaanka Soomaalida ansixin looga rabaa kadibna dekalata madaxweyne qaabkaasa loo marayo idaacad laga hadlo iyo qaylo loo mari ma karo waxna looga keeni karo Soomaaliya waxaan rabnaa inaad sidaa u fahamtaan aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan ugu dambeyntii ku dari lahay magaaladan maamulkeeda waa aragteen waa bilowday dib u heshiisiinta waxaa bilaabay gudoomiye Faabid Soomaa degmooyinkii gobolka mas'uuliyadda gobolka inuu Soomaali qaybtooda ka siiyo bilow fiican waa la wadayaa haddii aan maamulku sidaa oona u Soomaaliyeysnayn si caasimad ku noqonaysaa meesha waa ku hambalyeynayna inuu bilaabay in lagu daysadana waa mudan tahay in laga wada shaqeeyo la rabaa sidaasaan u maleynayaa Soomaalinimadu inay ku jirto waxaan isleeyahay marka bisaylka ka muuqda dadka iyo runta la fahmo hadda loo gudbay wax badan in laga dheefi doonaan u maleynayaa mudan wasiir adiga wasaaradda garabkiina Allah ku galo waa idinku garab taaganahay waa la idinkula shaqeynayaa shirkan waxa iska leh Soomaaliya inay mahadisaan la rabaa hadda kaftanadan maqlayay diaspora iyo maxay qolada dirida iyo ku leeyihiin waxay u bixiyaan waayahan qorax joog iyo qurba joog iyaga naftirkooda dib u heshiisiina loo sameeyaa dirida ma doonaan waxaan rajaynayaa marka in intaasan ku gabagabeeyo aad iyo aad aan idinka wada mahad celinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh